dowladood ee kala ahaa dowladdii Sacuudiga ee koowaad, dowladdii Sacuudiga ee labaad, iyo dowladda Sacuudi Carabiya ee iminka talisa. Tirada xubnaha qoyskaasina ay kor u dhaafayaan 25,000 oo qof sida ay ruuxgeedyada badankoodu soo warinayaan, yacni qabiil iska dhan. bal waxaynu isla eegaynaa qabiilka iyo taariikhdiisa iyo sooyaalkiisii hore iyo asalkiisa xoga aynu ka raadinay. qoyskan Aali Sacuud waxa uu ka soo hayaamay dhanka bari ee jasiiradda Carabta waayo hore, waxaana ay degeen deegaanka Najdi ee Sacuudiga. waxaa deegaankaas Sacuudiga ka aasaasantay imaarad ama ismaamul la odhan jiray Ad-Dirciya sanadkii 132 Hijriga, ayuuna Sacuud ibnu Maxamed qabtay xilkeeda. markii uu dhintay 137 Hijrigana waxaa ku dhowaad 3 sano kadib qabtay taladaas wiilkiisa Maxamed ibnu Sacuud. xilligaasina waxa uu ahaa 1725, waxaana uu ku guulaystay inuu unko dowlad yaro xooggan. dowladdaasina waxa ay garabsan jirtay baaqii islaamiga ahaa ee Sheekh Maxamed ibnu Cabdilwahaab, waxaana ay arriminaysay dowladdaas hore ee Sacuudigu muddooyinkii u dhexeeyey 1744 ilaa 1818. intaas ay koraysayna waxay yeelanaysay awood ciidan iyo awood dhaqaale iyo jiritaan rasmi ah, balse waxay ahayd dowlad kale ku hoos koraysa oo jiritaankeeda caabuq ku noqonaysa. waxaana uu loolan adag dhex maray iyaga iyo Cusmaaniyiintii. aakhirkiina 1818 ayay Cusmaaniyiintii dumiyeen, iyagoo u adeegsanaya barasaabkoodii markaas Masar u fadhiyey ee Maxamed Cali Baasha. kadib markii ay xilkeeda isaga dambeeyeen 4 boqor, haddana waxaa aasaasantay dowladdii labaad ee Sacuudiga oo talinaysay iyaduna 1824 ilaa 1891. dumintii dowladdii hore kadibna dadkii reer miyiga ahaa ee deegaankaas ku dhaqnaa waxay iyagu weli sidii daacad ugu ahaayeen oo la jireen reer Sacuud. markiibana hogaamiyeyaashii reer Aali Sacuud ayaa soo rogaal celiyey oo 1820 ayay dib u aasaaseen dowlad yar oo dhowr bilood uun jirtay. markaasay 1824 aasaasantay oo caasimadeeduna noqotay Riyaad, waxaana ay u dhisnayd oo u dhaqnayd qaabkii tii hore. dowladdaasina waxa ay u duntay iskhilaaf iyo loolan dhex maray ubadkii boqorkii markii hore ka arriminayey, waxaana ay duntay 1891, waxaana soo maray 7 boqor. 15 Janawari 1902 ayuu Cabdilcasiis ibnu Cabdiraxmaan ibnu Faysal dib u aasaasay Riyaad, waana dowladdan weli talinaysa ee jasiiradu weekaha Carabeed intiisii badnayd haysata. bishii Sebtembar 1932 ayaana si rasmiya loogu dhawaaqay inuu dalkaasi noqonayo boqortooyo loo bixinayo magacan ah boqortooyada Sacuudi Carabiya. ilaa iyo iminkana waxaa si rasmiya uga arrimiyey dowladdaas 7 boqor oo uu ku jiro kan hadda jooga ee Salmaan ibnu Cabdilcasiis oo xilka qabtay 2015. haddaba waxaa jira aragtiyo xooggan oo uu tiirinayo qoyska Aali Sacuud inay asal ahaan ka soo jeedaan Yahuud oo aanay ahayn Carab asala. aragtiyahaasina dhinacyada ay xoogga saarayaan waxaa ka mid ah nasabkooda iyo abtirsigooda oo odaygii ay ka soo aasaasmeen waxaa la odhan jiray Sacuud ibnu Maxamed ibnu Maqarin ibnu Markhaan ibnu Ibraahim ibnu Muusa. qodobka ay cuskanayaanna waa 3 magac ee dambe oo 2 ka mid ay wadaagaan muslimiinta iyo Yuhuuddu oo waa Ibraahim iyo Muuse, oo ay Yuhuudduna u yaqaanaan Abraham ama Abraahim, iyo Mooshe. magaca uu weerarku ka taagan yahayna waa awowgooda Markhaan, ma aha magac ay Carab iyo Islaamtoona la bixi jireen. waa sida ay dhigayaan aragtiyahaasiye. xataa haddaad internetka ku baadho magaca Markhaan oo Carabi ah, iyaga ayuunba abtirsigooda kuu soo dhigaya. waxaana ay aragtiyahaasi intaas ku darayaan inuu ahaa magac Yuhuudeed oo ah Mardikhaay, kadibna si aan loo fahmin loo bedelay Markhaan. abtirsiimadeeduna markaa waxay noqonaysaa Mardikhaay Abraahim Mooshe, halka iminka laga yidhaahdo Markhaan Ibraahim Muuse. marka ay aragtiyahaasi sii dabagaleen Yuhuudda ay ka soo jeedaanna waxa ay u qaybsameen 3 waaxood oo 2 ay dhigayaan. waa Yuhuuddii waayihii nebiga joogtay Madiine ee laga saaray, iyo waa Yuhuuddii Yamaneed oo intay bariga jasiiradda Carbeed u hayaameen oo nasabkooda soo bedeleen oo Carabiska soo dhigeen, haddana u soo hayaamay dhanka Sacuudigu hadda ku yaallo ee ay ka arrimiyaan. balse aragtida ugu xooggan waxay dhigaysaa inay yihiin Yuhuuddii loo yaqaanay Yuhuudda Doonme ee Turkiga ka jirtay ee intay muslimiinta iska dhigeen oo dadka dhex galeen hoosta yuhuudinimadooda ku qarsanayay, ahaana kuwii aakhirkii dumiyey khilaafadii islaamka ee Cusmaaniyadda, ahaana kuwii uu ka soo jeeday ee soo tababaray ee xilka saaray Mustafa Kamal Ataturki ninkii laalay khilaafadii Cusmaaniyadda. isla iyagiina ay ka soo jeedaan nimankan reer Aali Sacuud. waxaa aragtiyahaas inay yihiin qoyska Aali Sacuud Yuhuud sii xoojinaya inay yihiin qoyska keliya ee ka arrimiya deegaanada Carabta ee nasabkooda uu tuhunku ku jiro.
ee xataa qaar iyaga ka mida laga maqlay iskhilaaf ku aadan nasabkooda. waxaa iyaduna aragtidaas sii xoojinaysa magaca magaalada ay ka dhiseen dowladdoodii koowaad ee Dirciya oo dhigaysa dagaalkii Uxud ee ay munaafiqiintu khiyaameen nebiga iyo asxaabta ee ay ku jabeen in uu mid ka mida gaaladii nebiga la dagaalamaysay qaatay dirac ka mida diracyadii shuhadadii muslimiinta uuna ka gaday yuhuuddii Banu Qaynuqaac isaga oo uu sheegay inuu yahay diricii nebi Maxamed, sidaasna ay kaga gateen iyaga oo weliba ku faanaya. magaaladana ninka Mardikhaay ee Markhaan la baxay markii uu yimi uu magacan u bixiyey ad-Dirciya, yacni magaaladii diraca, balse ay taariikhyahano uu afka u buuxiyey oo hanti ku horay oo af wax cunay xishoo ahi magaca magaaladaas ma jara habaabiyeen oo yidhaahdeen waxaa loogu magac daray nin la odhan jiray dirac oo ka mid ahaa raaska uu ninkaas Mardikhaay sheegtay, balse iyadana waxaa barbar socota aragti kale oo dhigaysa ninka dhulka siiyeyba waxaa la odhan jiray Cabdilaahi ibnu Xajar. waxa uu sidoo kale yuhuudiga Mardikhaay hantidiisa oo uu adeegsaday ku awooday inuu isku xeero in calooshadu shaqaystayaala oo u faafiyo brobaganda iyo been dhigaysa inuu ka baxsaday qabiil la yidhaahdo Canza oo isna deegaanka dega kadib markii mid ka mid ahi uu aabihii ka dilay, isaguna uu naftiisa la baxsaday. markii uu halkaas tegayna uu yuhuuddii isu ekaysiiyey uuna yahay carab asala. waxaa intaas aragtiyahaasi ku darayaan inuu aad u dabagalay ninkaas oo uu ka shakiyey sheekh la odhan jiray Saalix Sulaymaani Cabdilaahi at-Tamiimi. sheekhaasina salaad isaga oo rukuucsan masjidka lagu dhex dilay. sidoo kale waxay aragtiyahaasi sii cuskanayaan magaca wiilkiisii isaga oo wata uu kala yimi dhanka Basra ee Ciraaq oo ahaa Makrin, markii uu carabta la dhex yimina uu bedelay Maqarin ama Maqrin, sidaasna uu kaga dhigay magac carbeed. Maqrinkaasaa dhalay mid loo bixiyey Maxamed, Maxamedna waxa uu dhalay Sacuud, waana kan aasaasay dowladda iyo maamulka qoyskanba, waana isaga ka qarankaas dhanba loogu magac daray si ay xukunkooda u sugaan oo dhidibada ugu aasaanna. waxay beegsan jireen inay ka guursadaan duqeyda qabiilada oo la xididaan, maadaama oo sida Soomaalida ay carabtuna xididnimada aad u ilaaliso. boqor Cabdilcasiis oo keliya ahina guurbadnaantiisa daraaddeed waxa uu dhalay 45 carruura. arrimaha iyaguna sii xoojinaya aragtiyaha yuhuudinimada ninkaas reer aala Sacuud ah waxaa ka mid ah nin caan ahaa oo la odhan jiray Sheekh Cabdilaahi Filibi oo ahaa ninkii la aasaasay dowladda ee salka iyo seeska u dhigay, oo ay taariikhdu caddaysay inuu yahay nin Ingiriis oo mustashriqiintii muslimiinta iska dhigi jirtay ahaa, uuna ka mid ahaa sirdoonka Ingiriiska oo magaciisa caadiga ahi uu ahaa John Filibi, balse inta uu islaamay uu la baxay Cabdilaahi Filibi. marka uu dhammaystiran yahayna magaciisa waxaa la odhan jiray Harry St John Bridger Filibi. ninkaas iyo ninkii la odhan jiray Percy Cookes oo ay barbar socdaan Lawrence al-Carab iyo Gertrude Bell oo labadan aynu taariikhdooda hore uga soo faalloonayna waxay ahaayeen dadkii aadka uga howlanaa ee uu Ingiriisku u diray isku dirista iyo kala dirista labada ummadood ee walaalaha ahaa ee Cusmaaniyiintii Turkida ahayd iyo carabta jasiiradu ee ka taalla geed gaaban iyo geed dheerna ay u koreen ka dhabaynta higsigaas, iyada oo hubka ay howlahooda u adeegsanayaan ay ahayd ciddii markaas ku sheeganayd madaxyaweyntii qabiilada Carbeed oo ay hormuud u ahaayeen aala Sacuud laftoodu. waxaa iyaduna aragtiyahaas dhigaya yuhuudinimada reer aala Sacuud sii xoojinaysa inuu soo naasnuujiyey weligoodba Ingiriis, iminkana uu weli Maraykan naasnuujiyo, ayna yihiin xabadda lagu rido caalamka islaamka iyo seefta lagu garaaco ummadda muslimka ah. waxaa diyaaradahooda ku qoran laa ilaaha ila allah, weligoodna qof laa ilaaha ila allah la mooyaane qof kale diyaaradahaasi ma aanay dilin. halkan waxaa inooga soo baxaya markaa su-aasha in badan oo ummadda islaamka ka mid ahi isweydiiso ee ah inka muslimka dilaya uu yahay carab, diyaaradda duqaynaysana ay leedahay carabi, ka muslimka khiyaamaynayaana uu yahay carab, ka mar walba gaalada la jira ee la cunaqabataynaya dowladaha yaryar ee islaamka ahina uu yahay carab, kaan islaamka awood u ogolayninna uu yahay carab, ka dambeeya Falastiin in hadh cad oo dharaar ah bannaanka lala maraa uu yahay carab, muslimiinta adduunka oo dhammina ka ay maanta ka necab yihiin yuhuudda iyo reer galbeedkuba uu yahay carab. hal xidhaalahaas inta badan dadka ku adkaaday inay fahmaan ee ah maxay madaxda carabtu sidan u samaynayaan miyaanay muslimiin ahayn, waxaynoo xalinaysa masaladan ah reer aala Sacuud oo qorshayaashii loo dejiyey caalamka islaamkaba waxaa ka mid ahaa in midnimadooda la kala furfuro si aanay isugu gargaarin, oo sidii 3 dibe iyo libaaxii carruurnimadii laynooga sheekayn jiray midba meel loogu cuno. kala furfurankaasna waxaa u horseeday basaasyadaas reer aala Sacuud, carab iyo yuhuudka ay doonaanba ha ahaadeene, oo maanta la isku raacsan yahay inay yihiin dabadhilif iyo basaasiin, oo tallaabo kasta oo ay gaalo qaadi lahayd iyaga ayaa uga soo horreeya oo qaadaya, hadalkoodana way u hoganayaan. marka muslim la dilayo reer aala Sacuud xabaddooda ayuu ku dhimanayaa,
marka muslim gadooday la buquujinayo ee ama argagixiso lagu sheegayo ama lala dagaalamayana xabaddu waa mid reer aali sacuud. waxaas oo dhammina waa caalamka islaamka iyo carabta oo la isnacsiinayo, oo xataa ka Soomaali ahaan cidda aynu maanta ugu necebnahay waa carab. sababtu waa faacayilka iyo habdhaqanka aynu ka aragnay, iyo sida ay tahriibayaasheenna reer aali sacuud ugu rushaynayeen badda, halka ay reer galbeedkuna maraakiibta ku gurayaan. waxaas oo dhammina waa isnacsiin ummadda cajamta ah iyo ummadda carbeed la isku nacsiinayo. basaasyada layna dhex gashadayna ay ka dambeeyaan. sidoo kalena marka basaasiin iyo sirdoon la joogo, waxa ugu mudan jaajuuska cidda uu jaajuusaya ay u maleeyaan inuu iyaga ka tirsan yahay. xataa cajamta iska daaya, carabta lafteeda ayaanay reer aali sacuud naf u haynin, oo Yaman cidda garaacaysa ee nafta ka jartay waa reer aali sacuud. dowladaha kale ee carbeed ee maanta burburayna warkooda waad ka dheregsan tihiin. wax naf leh oo lagu faani karo oo islaamnimo lahaa oo la sheegan karana hal nin oo boqor Faysal la odhan jiray ayaa soo maray. markaa bulsho yahay Soomaaliyeed, carabta ha nicina ee madaxda carabta naca. shacabku waa innaga oo kale, madaxdooduna waa madaxdeenna oo kale. aragtiyaha kale ee yuhuudinimadooda sii xoojinaya waxaa ka mid ah in markii yuhuudi la magac baxday yuhuudu doonme ee degganayd magaalada Saloniika ee iminka Giriiga ku taalla, ay khilaafadii Cusmaaniyadda dhankaas ka karkarinaysay, ee suldaankeedii awoodda lahaa ee Cabdilxamiid ay casishay. Mustafa Kamal Atatürkina ay ku soo shacsaartay ee khilaafada dhankaas ka gashay. dhankana ay kaga jireen reer aali sacuud oo carabta badankooda u hogaaminayay dhanka duminta khilaafadii. sidoo kalena waddanka Sacuudiga ee ay hadda ka arrimayaan waxa ay ku qabsadeen xoog iyo dadkiisa oo ay muquuniyeen, welina xooggii iyo kalitalisnimadii ayay ku haystaan. waxa isaguna waxaasba sii xoojinaya muftiga Sacuudiga ee dhammaanba arrimaha diiniga iyo dunyawiga ah loo daba fadhiisto, oo nin indhola mooyaane aan nin kaleba jagadaas loo dhiibin. indhola'aantaasna sababaha ugu waaweyn ee ka dambaysa waa inaanu arag waayaha adduun iyo waaqica dhabta ah, ee waxa uu maqlo uunuu ku fatwoodo. wixii uu maqlayeyna cidda u sheegaysaa waa iyaga iyo cid la xidhiidha uun. la isma caasiyo si kasta oo ay ahaataba, yuhuud iyo carab cidda ay doonaan ha ahaadeene, haddana waxay u dadaaleen xajka iyo sidii ay dadku sida ugu wanaagsan uga xaji lahaayeen ee raaxo ugu heli lahaayeen. yuhuud iyo carabka ay doonaan ha ahaadeene, dhanka xajka sidii ugu qurxoonayd ee ay u hagaajin karayeen ayay isaga u hagaajiyeen, inkasta oo weli baahiyo badan laga filanayo. haddaba marka loo eego intan oo qodoba uu sooyaalku xusayo iyo dhacdooyinka taariikheed ee aynu hayno, reer aali sacuud ma yuhuud ayaynu ku tirinaa mise carab? jawaabtu waa dhankiinna. wassalaamu calaykum.